Antiin oo ay ugu horeeyaan salaadiinta iyo istimada iyo guddoonka baarlamaanku sharaf weyn bay ii tahay inaan ka soo qaybgalay xafladan. waan ka mahadnaqaynaa intii soo qabanqaabisay ee waqtiga gelisay intiina ka soo qayb gashay ee nagu sharaftayna ka soo qayb gashana waan idinkaga mahadnaqayaa. runtii farxad aan la koobi karin iyo rayn iyo maanta haddii aad dareenkayaga la arki kari lahaa waxaa ka muuqday runtii waad yaabi lahaydeen runtii soo dhoweyntii aanu ka soo bilownay Cawsane, Midigale, Rad, Dumure iyo Baran oo hadda aan joogno oo meel walba dadka shacbiga ay noo taagnaayeen ayadoo cirida ayadoo 90 degree Fahrenheit ay noo taagnaayeen nagu soo dhaweynayeen. waan ka mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol aad baan uga mahadnaqaynaa. warkana ku dheeraada ma rabo waqti maqribkii baa la joogaa runtii waa soo koobaya waan soo gaabinayaa haddaad ii ogolaataan. waxaan runtii ku faraxsanahay waan imid bishii December 2013 baan imid Baran 5 sano ku dhow ka hor. waxaan aad ugu faraxsanahay wejigii ay waqtigaan ahayd weji aad uga duwan inay leedahay Baran maanta. ma rabo su'aal waxay tiraahdaa haddii lagu sheego waa la sheela. maanta dhabaad naamaanayseen shalad naamaanayseen in badan baan ammaanta maqlaa runtii markaan idhaahdo waxaasan qabanay waxaa micnaha ma tarayso. waa wanaag u soo kordhay Puntland, waa wanaag u soo kordhay Soomaaliya. wixii la qabtayna dawladda Soomaaliyeed baa qabatay, dawladda Puntland oo iyo shacabkeeda ayaa qabsaday. waxaan ugu madaxweynaha ku faani kara ma aha haddaan ku faanana waa in casnimo. waxa weeye dadka Puntland baa qabsaday waxaa ka qabsoomay sanaad maanta. laakiin waxaan rabaa dhowr noqodood inaan dul istaago. tawraysa waxaa weeye gobolkan in muddo markaan nimid ma uusan ahayn gobol dakhli leh. gobol wuxuu ahaa laga kabo miisaaniyadda dawladda. gobol wuxuu ahaa shaqaalaha jooga lacagtiisa laga keeno meel kale. maanta waxaan idiin sheegayaa magaalada Baran waa magaalada afraad ee wax soo saarka Puntland. markii laga reebo Boosaaso, Garowe iyo Gaalkacyo awal qarda ahayd hadda waxaan maranayaa miisaaniyadda u dambeysay dhowrkan bari in ay dhaaftay oo ay tahay magaalada afraad maanta. dakhliga Baran maanta wuxuu ku filan yahay inuu daboolo miisaaniyadda Highland iyo Sanaag labadaba. tan kale aad baa wadada looga hadlay run way ahayd maalintii aan soo maraynay 2013 dhibta aan soo maray anaga ogeyn iyo waxaan kala kulannay sideedana magaalo markii ay jid hesho ay magaalo noqotaa. Boosaaso halkan laga aadi jiray ama Boosaaso dadkeedu aadi jireen ama ay qaarkood deganaayeen. Boosaaso laftigeedu waxaad qiyaastaa haddaysan jidka dheer laamiga iyo dekada yar lahayn Boosaaso maxay ahaan lahayd? maxay la asqori kaga duwanaan lahayd iyo qardare kaga duwan halka ay duwanaatay. marka jidku waa muhiim. maanta marka aad ku talagalaysaan in waqti aan dheeray ilaahay idinkii oo wadadaasi ilaa Ceergaabo la gaarsiiyo oo laamiga la saaro oo dalku isu furmo Sanaag isu furanto in dad badan ma ahreysanaay. dhulkaana waa dhul qurux badan, waa dhul dalxiis weeye Sanaag. marka labada ka raba waxaan ka rabnaa horumarka oo la sii wado iyo dhulkeena inaan ka kicino sharwadayaasha iyo shabaabka. labada haddii la isku diro waxaan idiin sheegayaa Sanaag waxay noqonaysaa meel lagu tartamo, la yimaado, loo dalxiis tago. Soomaaliya kaliya ma aha adduunka laga yimaado noqonaysa. markaan ka hadlaynay wadadan runtii waxaa noo qorshaysan wadooyin kale oo ay ka mid tahay Geel Doora sababtoo ah dhulka quruxda badan oo buuraleyda ayaa rabnaa in runtii dadku ay aadaan
ay isu furanto meesha la yiraahdo baran iyo laasqor ay isu furmaan waxaan rabnaa in sheerbi iyo dhaxar iyo xingalo la isu furmaan insha Allah diraayo marka wado iyo biyo waxaan qoonaysaa xaskaygu wuxuu ahaa hal jid iyo hal ceel ma xasuusta magaalada soo baan hal jid hal ceel noloshu waa inta halkan 5 sano ka hor baan December guriyaha yar yar ka ah suldaanku ka hadlayay ayaan ardayda lecture uga jeediyay hadda markaan soo galay suldaanku kombiga tusay ba arki weyn ya maanta difference ka u dhaxeeya Maakhir University oo maanta iyo Maakhir University 5 sano ka hor waa muuqata umaleeymayo dhismaha ku yaala maanta Maakhir iyo soo u egtahay buruxda ka muuqatahay jaamacad Soomaaliya ku taalo la mid jirto umaleeymayo hakoobnaato waa laga yaabaa in laga dhismayaal badan yahay sababtoo jaamacadda waa cusub tahay waana kooban tahay ilaa xad laakiin qaabka ay u dhisan tahay iyo buruxdeeda meel Soomaaliya ku taalo jirto umaleeymayo marka waa horumar soo saaciday reer Baran reer Sanaag Puntland iyo Soomaaliya inta waxaan rajaynayaa sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanku qaybta labaad oo ugu muhiimsan tahay chiefku markuu dhameystirmo waxaan rajaynaynaa inay noqoto jaamacadda ugu weyn Puntland ama Soomaaliya sababtoo ah meeshan waa meel cajaa'ib oo cimrigeedu ay cajaa'ib leedahay marka haddii boarding qofku uu helo jaamacaddiina ku taalo ama gada ka imo ama Jubbaland ka imo ama Beedhabo ka imo waxaan noqonaysaa jaamacad u furan Soomaaliya dhan bay noqonaysaa jaamacadduna ma aha jaamacad reer Baran leeyihiin iyo reer Sanaag meeshan bay ku taalaa mooyaane jaamacad Puntland iyo Soomaaliya dhan ka dhaxaysa dhanka amniga way jireen ciidamo joogay gobolka 2 sano ka hor oo madaxu ahaa Cabdullaahi Cumar Canshuur laakiin maanta ciidamada jooga Sanaag hadda hawshan tukoraqyadii iyo xoreynta difaaca marka laga reebo gobolka maanta ciidamada jooga ugu badan yihiin Puntland waxaan u maleynayaa ciidamada reer Sanaag anagu aan qoray waa ka badan yihiin 1,000 askari laakiin waxaan rabnaa intaas oo ciidanna waa la jooga xoogaa shabaab aan naga haysta galgal caqli ma ya waxaan rabnaa in aanu ku dareerno dhammaanteen anagoo wada soconna been idin sheegay meeyo dumarka baran jooga hadday barinta ku dareeraan galgala ayaga shabaab ku filan ka saaray waxay ma jirto xoogaa farsamay xuma ah iyo runtii waxaan haysata aan isleeyahay uma aan dadka rabaa dawlad kaliya ma shacbiga raba inay ka go'an tahay inay dalka difaacaan oo ay ka saaraan waxa weeye wiil ka yimid xudur iyo diinsoor iyo burxa kaba ya oo kaba dacsa qaba inuu inta yimaado nagu xukumo dalkaygii suurtagal ma aqliga ma lama yeeri karo ana sidar kuwa reer Puntland iyo naga jiraan Allah soo hanuuniyo inta kale inaan isaga filaano ayaan rajaynaya wuxuu ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanku xagga amniga iyo booliiska waa run booliis macna kama jirin gobolka hadda waa la socotaan waxaan dhisnay 4 station ugu horeysay 4 kalena waa daba socotaa waa la socotaa umeynaya waxaan rabnaa marka amnigu waa muhiim in amni ay tahay magaaladu بوليس يا شرعي يا كلا دمبين أي لا هاي أيها لك ما معنا إن شاء الله ورجينا إن إذا ما يستلمان وهكذا اللي بيها سيدا مهم ويهين أنا بنينا يا علاش الله دم يستري يكون هذا الله ده حديقة السعودية وطبعا أنا بنينا مسكوت دارو إيه لما حرود أما سبيه حرين ومن اللي قاعد يسمي الدجال من اللي قاعد يسمي بالي بوسلة مد اللي قاعد يجي مدقالة ومد قوي ويبول هذا هذا سليم مركا وحنا رجينا إن وسوق بيرها هذا سادة اللي شو ده ورقة هاي
shan wasaaradood ayaa hore uga jirinin ayaa maanta baran ku leh xarumo ay ayagu leeyihiin oo ku shaqeeyaan waxaasoo dhan marka laga soo tago waxyaabaha ma sheeg karno oo yani la qabtay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye horumarka Sanaag waa uu soconaya cid joojin kartaana ma jirto ama Cabduwali ha ahaado ama siyaasi iga dambeeyo imaanaya ha ahaadee horumarka bilowday jidka hadda qof ceergaaba u socda qof joojin karaa jira marka Maaqir University inay dhisanto mid hor istaagaysaa jirta marka hadii qof siyaasi ah oo horumarkaas duu hor istaagi doonaa ma jiro runtaas leeyahay hadduu sawaalay hadduu waasho isku dayana dadka ku filan ninka ku filan sidoo kale way mashaariicda kala dalka socota ama mudug ka socdaan Amerika ama ka socdaan bari ama ka socdaan Sanaag ama ka socdaan Highland waxa weeye mashaariicda socotaana waa soconaysa insha Allah waa rajaynaya waxaan u imaanayaa jaamacadda marka aad baan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay jaamacaddan inay dhisanto sida uu sheegay suldaanku ay ugu horeeyeen dadka deegaanka oo ayagu ku fakiray inay subsadaan jaamacaddoodii bilowdaan haddii inaan taas suubin lagu fakareenba haddaan dhismaha yari jirin ka weyn ma yimaadeen marka waa ku mahadsantii inaad garateen inaad waxbarashada qiimaheeda fahamteen inaad jaamacaddii aad subsataan aad ku talagasheen oo samaysateen aad baad ugu mahadsantii waxaan ka mahadnaqaynaa dowladda Kuwait waxaa la yidhi qofkaan binaadamku mahadnaqin ilaahay u mahadnaqo waxa weeye dowladda Kuwait Fund oo lacagta dhismaha bixisay contribution ku weyn bixisay aad iyo aad bay inuu mahadsan yihiin waa mahadnaqaynaa guddiga BIU-da la yiraahdo oo ugu horeeyay shirarka nagala joogo runtii oo juhdi badan geliyay inuu mashruucu hirgalo sababta mashruucu wuxuu baahnaa in la daba socdo in email marks la qoro in qof la waco waxa weeye waqti badan bay geliyeen iyana aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ugu dambeeyna dowladda Puntland oo isku hawshay in hawsh jaamacaddan ay hirgasho oo budugo ah dhismaheedana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin jaamacaddu marka saan sheegnay haddii fayskeeda kale uu ku darmado waxay noqonaysaa jaamacad ballaaran meel kastana looga yimaado insha Allah ka hadlimay marka maanta waxbarashada iyo qiimaheeda waxa taabtay gudoomiyaha baarlamaanka laakiin hal arrin baan leeyahay ka hadlaya waxa weeye jaamacadda Maaqir University waxay u sahlaysaa reer Sanaag iyo reer Baran inay helaan tayo waxbarasho oo wanaagsan inay helaan ay oo yani siinaysa waxaan la soconaa jaamacaddu bilowga markay tahay inaysan isdabooli karin qarashkeeda waxaan ballan qaadaynaa dowladda Puntland inta ay ku istaagayso jaamacadda cagaheeda ay ku soconayso oo dhaqaale dabadeed iyo mid daakhili iyo mid ardayad ku filanba intay ka helayso inaan garab istaagnaano la soconno contribution weyn aan ka geysan insha Allah waqti waa ku leeyahay aad baad u mahadsantahay